بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka ogaano farqiga u dhaxeeya Mastercard iyo Visa Card. Visa Card iyo Mastercard waa shabakado ka shaqeeya adeegyada lacag bixinta elektarooniga ah oo waxa ay sahlaan lacag bixinta iyagoo ka wakiil ah hay'adaha maaliyadda oo waxay lacagta ku wareejiyaan shirkadaha gada badeecadaha ama adeegyada kadib marka ay macaamiisha gataan badeecadahaas ama adeegyadaas. si aan qeexidaas u fahanno aan isla aragno tusaalahan aan dhahno macmiil ayaa waxa uu rabaa in uu gato mobile waxa uuna wataa Mastercard ay soo saartay Premier Bank. haddaba macmiilka Mastercardka waxa uu u dhiibayaa shirkadda gadaysa mobileka oo waxa ay marsiinayaan mashiinkii loogu talagalay si lacagta mobileka looga jaro koontada uu macmiilka ku leeyahay Premier Bank loona siiyo lacagta shirkaddii gadaysa mobileka. haddaba lacagtaas la kala wareejiyay waxaa sahlay Mastercardkii uu macmiilka watay waxa ayna Premier Bank ku soo saartay Mastercardkaas ayadoo ka wakiil ah shirkadda iskale Mastercardka si ay ugu sahlaan macaamiisha in ay lacag elektaroonig ah si sahlan u kala wareejin karaan sida in ay wax kala gataan oo kale. Visa Card iyo Mastercard labadoodaba waa shabakado lacag bixinta caalamiga ah kuwa ugu caansan balse labadooda isku mid maahan. haddaba inta aanan ka hadlin farqiga u dhaxeeya aan bal aragno taariikhdooda kooban. haddaan ku hormarno taariikhda Visa Card waxaa la aasaasay sanadii 1958 waxaana aasaasay Bank of America. magaca kaarkana waxaa loo yaqaanay Bank Americard waxaana lagu aasaasay Fresno ee gobolka California ee dalka Mareykanka. kadibna waxa uu kaarkii ku fiday dalka Mareykanka oo dhan. 1976 ayaa laga bedelay magacii ahaa Bank Americard loona bedelay Visa waxa uuna noqday global brand. 2008 ayaa shirkadda bixisa adeegyada Visa Cardka noqotay shirkad sheeriskooda ama saamiyadooda lagu kala iibsado si public ah sidoo kalena ka diiwaan gashan suuqyada saamiyada. haddaba Visa Card waxaa laga adeegsadaa in ka badan 200 oo wadan waxa uuna ka shaqeeyaa isku xirka shakhsiyaadka ganacsiyadaha iyo hay'adaha maaliyadda. markana aan isla aragno taariikhda Mastercard waxaa la aasaasay 1966 waxaana lagu aasaasay magaca Master Charge the Interbank Card. magacaas ayaa loo aqoon jiray waxaana kaarkan sameeyay bangiyaal kala duwan oo la tartamayay kaarkii ay soo saartay Bank of America ee gadaal ka noqday Visa. haddaba 1979 ayaa laga bedelay magacii hore ee lagu aasaasay loona bedelay magaca Mastercard. sanadii 2006 ayaa shirkadda laga dhigay public oo saamiyadeeda lagu kala iibsado suuqyada saamiyada. haddana waxa ay ka shaqeysaa in ka badan 210 meelood iyo wadamo kala duwan waana kaarka labaad ee ugu caansan marka laga reebo Visa. aan markana isla aragno farqiga u dhaxeeya labada kaar. kow waa issuing bank. ogow in Mastercardka iyo Visa Cardka aysan ahayn bangi sidoo kalena lama macaamilaan macaamiisha caadiga ah sida aniga iyo adigoo kaleeto iyo shirkadaha caadiga ah balse waxa ay la macaamilaan hay'adaha maaliyadda sida bangiyada oo kale iyo credit unionka. haddaba bangiyada soo saara kaararkaas ayagoo ka wakiil ah Mastercardka ama Visa Cardka ayaa go'aamiya shuruudaha lagu soo saarayo kaarkaas oo ay macaamiisha ku isticmaalayaan. tusaale ahaan Premier Bank ayaa go'aaminaysa shuruudaha aan ku isticmaalayno Mastercardka sidoo kale IBS Bank ayaa iska leh go'aanka aan ku isticmaalayno Visa Cardka. labo waa acceptance ama aqbalaadda kaarka. labada kaarba waxaa laga isticmaalaa wadamo kala duwan ee ka tirsan dunida balse kaarka Visa ayaa ka caansan kana aqbal badan marka loo fiiriyo Mastercardka. 3 waa payment products. labada shirkadoodba waxa ay bixiyaan kaarar kala duwan oo u sahlaysa macaamiisha inay wax ku gadan karaan. kaararka waxaa ka mid ah credit card, debit card, prepaid card iyo commercial card. debit card iyo credit card horey ayaan uga soo hadalnay waxaanad ka dhageysan kartaa lifaaq hoose. prepaid cardka waa kaar aad adiga ku shubanaysid hadba intii aad rabtid si aad u isticmaashid.
halka commercial cardka uu yahay kaar loo soo saaro shirkadaha. 4 waa technology. Mastercardka iyo Visa cardka waxa ay mid waliba isticmaashaa hab lacag bixin sugan oo iyada u gooni ah. Tusaale, Visa cardka waxa ay isticmaalaan VisaNet, halka Mastercardka ay isticmaalaan Mastercard Worldwide Network. Shirkad walibana waxa ay ku dadaashaa sidii ay u horumarin lahayd nidaamkaas lacag bixinta ah ee sugan. 5 pricing and fees. Visa cardka iyo Mastercardka waxa ay leeyihiin qaab dhismeed kala duwan ee ah lacagta khidmadda. Lacagtaas waxaa loo yaqaanaa interchange fee, waxaana lacagta looga qaadaa macaamiisha adeega loo qabanayo aawadiis, sida inay si sahlan ku gadan karaan alaabta ama adeega ay rabaan. dhanka kalena shirkadaha gadaya adeegyadaas ama badeecadaha waxa ay ku gadi karaan si sahlan. haddaba tirada lacagta khidmad ahaanta looga qaadayo shirkadaha gada badeecadaha iyo adeegyada ama macaamiisha ayay ku go'aansadaan haddii ay isticmaalayaan Mastercard ama Visa card. markana aan isla aragno noocyada ugu waaweyn kaararka kala duwan ee ay soo saaraan Mastercardka iyo Visa cardka. haddaan ku hormarno Visa cardka waxaa ka mid ah kuwan hortiina ka muuqda. waxa ayna ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah tirada lacagta lagu isticmaali karo, meelaha lagu isticmaali karo iyo adeegyada aad helaysid haddii kaarkaas aad qaadatid. mar waliba oo hoos la aado adeega aad helaysid wuu badanayaa, mar waliba oo kor la aadana wuu yaraanayaa. oo kaarka ugu heerka sareeya waa midka u dambeeya ee loo yaqaano Visa Infinite. haddaan markan isla aragno noocyada kaararka ee Mastercardka ee soo saaran kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah kuwa hortiina ka muuqda. oo sidii aan ku soo aragnay Visa cardska waxa ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah tirada lacagta lagu isticmaali karo, meelaha lagu isticmaali karo iyo adeegyada aad helaysid. mar waliba oo hoos la aado waxaad helaysaa adeeg badan, mar waliba kor loo laabtana adeega iyo facilitieska aad ku isticmaali kartid kaarkaas wuu yaraanayaa. haddaba kaarka ugu heerka sareeya waa midka u dambeeya ee loo yaqaano World Elite Mastercard. wadankana wuu yaalaa inta aan ka warqabo waxaa kaliya bixisa bankigan IPS Bank. aan markan isla aragno sida ay u shaqeeyaan. haddaan ku hormarno Visa cardka, aan dhahno waxaad haysataa Visa card ee soo saartay IPS Bank. haddaba kaarkaas waxaad ku isticmaali kartaa meel waliba oo laga aqbalo, ha ahaato wadanka gudihiisa ama dibadiisa. markana aan isla aragno Mastercardka, aan dhahno waxaad haysataa Mastercard ee soo saartay Premier Bank. haddaba kaarkaas waxaad ku isticmaali kartaa sidoo kale meel waliba oo laga aqbalo, ha ahaato wadanka gudihiisa ama dibadda. gunaanad, Visa card iyo Mastercard labadoodaba waa shabakado lacag bixinta caalamiga ah kuwa ugu caansan. waxaanan soo aragnay farqiyada ugu muhiimsan ee u dhexeeya labadooda. waxa ayna labada shirkadood ku tartamaan had iyo jeeraale sidii ay sare ugu qaadi lahaayeen adeegyada ay u qabtaan macaamiishooda. xog dheeraada oo ku saabsan IPOs ama Initial Public Offering, Credit Card, Debit Card, Financial Institutions iyo Credit Union fadlan ka dhegeyso lifaaqyada hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.